sida muuqata dagaalka Iiraan kaliya ma uusan duqeynin saldhigyada iyo weliba danaha Mareykanka ee mandiqada Bariga Dhexe sidoo kale waxa uu duqeeyay gidaarada gudaha maamulka Mareykanka sida ay tibaaxayaan warbixino laga soo xiganayo mas'uuliyiin Mareykan ah in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance uu shaki geliyay marar badan gaar ahaan inta lagu jiray shirar xiran oo markaasi looga hadlo arrimaha xasaasiga ah ee dagaalka Iiraan sida laga helayo warinada Pentagon soo gudbinayo sida dagaalka Iiraan lagu qaaday u socdo gaar ahaan qaabka ay warbixinada u soo gudbinayso wasaaradda dagaalka Mareykanka oo xaalka dagaalka u suuradeynaysa in wax walba yihiin sida loogu talagalay gacantoodana wax walba ku jiraan khilaafka ka jira halkan ma aha faahfaahin maamul mana aha in la isku khilaafsan yahay qiimeynta ay bixinayaan mas'uuliyiinta ee waa mucaaradad uu sameynayo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka gaar ahaan hadallada ka soo yeeraya wasaaradda difaaca Mareykanka waa isku day muuqaalka guud loogu ekaysiinayo in Mareykanka wax walba gacantiisu ku jiraan halka ay jiraan arrimo kale oo tilmaamaya in gudaha maamulka wasaaradda difaaca ay ka hadlayaan mushkilad xaqiiqi ah oo ku aadan keedka gantaalada Mareykanka dhiigbaxa hubeed oo sii kordhaya dagaalkana uu ka dheeraanayo kana cuslaanayo sidii Washington filaysay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa isweydiiyay su'aal ah ma wasaaradda dagaalka ayaa qarinaysa xajmiga dhiigbaxa hubeed ee Mareykanka macluumaadka ugu khatarta badan ee warbixinta ayaa tilmaamaya in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance uusan caaradin faahfaahinada yaryar ee waxa uu shaki geliyay warinta Pentagonka inay sax tahay iyo in kale gaar ahaan arrimaha ciidanka Mareykanka iyo dagaalka Iiraan lagula jiro marar badan iyadoo shirar lagu jiro ayaa JD Vance weydiiyay haddii wasaaradda dagaalka Mareykanka ay yareynayso xajmiga dhiigbaxa hubeed ee aadka u daran oo ku wajahan keedka gantaalada Mareykanka sababtana ay tahay dagaalka Iiraan su'aashan kaligeed ayaa waxa ay tahay mid ku filan in muuqaalka isku rogo si kaamil ah waayo Washington oo adduunka la soo hor istaagto kuna hadlayso luqad awood leh iyada oo ah dawladda adduunka ugu xooga badan ciidanka ugu awoodda badanna leh diyaargarowgooduna uu sareeyo in maanta gudaha ay ka waajahayso su'aalo ku aadan gantaaladeeda si dhamaanaya keedkeeduna waad isku dhimayo ciidankoodana haddii ay ku sii jiraan dagaal waqtigiisa dheeraada ay ku imaan karto xaalad dacfi ah oo ay markaasi ka niyad jabaan inay weerar qaadaan ama u dhaqaaqaan si firfircooni leh ee dhanka cadowga macnaha oo waadax ah ayaa waxa uu yahay in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka marna ma uusan rumaysan warinada wasaaradda difaaca ee ah in wax walba gacantoodu ku jiraan mana doonayo in muuqaalka loo qorxiyo Trump iyo raayil caamkaba iyada oo gantaalada difaaca Mareykanka u dhamaanayaan si degdega oo walwal leh khilaafka ayaa wuxuu u muuqdaa inuu ku dhex wareegayo qaabka ay wasaaradda dagaalka Mareykanka u soo gudbiso sheegtayna in xaalka uu gacantoodu ku jiro waxaa jira hadallo rasmi ah oo ka soo baxaya maamulka Mareykanka oo dejinaya dhammaan gaar ahaan in howlgallada ay u socdaan sidii loo qorsheeyay ciidanka Mareykankana awood u leeyahay maamulka dagaalka iyo duqeymaha Mareykanka ee Iiraan iyo dagaalka gobolka ka socdana aysan waxba ka bedelin xisaabaha waaweyn Vance marnaba kuma qanacsana hadallada ka soo baxaya Pentagonka oo ku wajahan in xaalka uu gacantooda ku jiro marka hadiiba madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka uu ka shakisan yahay hadallada uu warinayo Pentagonka sidee ayaa lagu qancin karaa raayil caamka Mareykanka in dagaalka uu ku sii socdo mid bilaa qiimo ah dagaalka Iiraan sida muuqata marka loo eego macluumaadyada la soo dusiyay maaha dagaalkii la yaqiinay ee caadiga ahaa sida duqeymaha weerarka iyo weerar celiska ee waa dagaal dhiigbax ballaaran ku keenaya keedadka Mareykanka ee hubka gaar ahaan wuxuu cadaadis ku hayaa nidaam difaaciyeedyada cirka gantaalada ka hortaga arrimaha logistikada iyo keedka military ee Mareykanka qudhiisa gantaal kasta oo ka yimaada Iiraan ama diyaaradaha iswada ama weerar dhanka badda ah macnaheeda maaha kaliya hadaf laga hortagay ay waxay ku sii badinaysaa ciidanka Mareykanka qarash dheeraada maalin walba oo dagaalka sii soconayana ayaa macnaheedu tahay in Washington ay adeegsanayso gantaalo tiro badan
qiimihiisuna uu aad u sareeyo. Taana waxaa ka sii daran in gantaaladaasi dib loo soo saarana ama dib loo farsameeyo ay ku qaadanayso waqti dheer iyo qarash badan. Iiraan uma baahna jebinta ciidanka Maraykanka military ahaan si toos ah, hase yeeshee waxay awoodaa in Maraykanka ku furto dagaal muddo dheer qaata qarash badanna ku baxa. Midan oo Washington ka yeelaysa inay dib ugu laabato kaydadkeeda hubka, xisaabteedana dib ugu laabato, gaar ahaan marka dagaalka uu ku baaho gobolka oo dhan sida wadamada Khaliijka, Ciraaq, Suuriya, badda, marinada muhiimka ah iyo weliba saldhigyada Maraykanka. Kala qaybsanaanta gudaha maamulka Trump ayaa daaha ka rogaya xajmiga baxarka uu galay Maraykanka. Waxyaabaha ka soo baxaya shirarka xiran in maamulka Maraykanka uusan ahayn koox isku duuban oo adag oo isku aragti ka ah dagaalka, iyada oo haddana maamulku muujinayo isku xirnaan. Maadaama la kala aragti duwan yahay, koox ayaa doonaysa inay sii wado hadallada hanjabaadda ah oo markaasi ka hadlaan gacanta sare inay iyagu leeyihiin awood iyo ka hortagna lagu waajaho dagaalka. Waxa kale oo jira koox aad ugu dhow xarunta go'aamada oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka J.D. Vance oo mar walba raadiya xaqiiqada dhabta ah ee kaydadka gantaalada iyo haddii hay'adaha ciidanka ay soo gudbinayaan xog sax ah iyo in kale. Noocan khilaafaad lama arko aan ka ahayn marka xaaladda ay gaarto meel aad u adag oo ka weyn bayaano rasmi ah oo la soo saaro. Haddii arrintu tahay mid iska fudud, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka uma baahna inuu shaki geliyo dhowr jeer waxyaabaha ay soo bandhigayso Pentagonka, balse haddii su'aaluhu ay dul hoganayaan gantaalada, kaydadka iyo weliba awood u yeelashada sii wadida dagaalka, tani ayaa waxay micnaheedu tahay in dagaalka uu galay mandiqad xasaasi ah ee gudaha Washington qudheeda.